wixii maanta jira magana sheegaya Muuse mas'uul baa tuhoo waad namirataa mas'uulnimadu waa turtay oo waad masaxan tahay meeraysi xaalkaagu noqay Muuse kaliya markii aad miciin naga rabtad madaxa taagaysay Muuse markii aad lahayd meel kumaad qoran malyan iyo malaayiin qof oo wada masaakiina oo adiga madax ka dhigtay muruga haysaa maaleeyo geedka ku taal magana ii muuqda ninka yiri ana Muuse oo maan dhawaan jirin odaygii kuma Muuse baan meel banoodayn isaguba muraad buu lahaa lama samoodayne mar haddaanad maamuli karayn mariya ceeb maaha madaxweyne musuqmaasuqda Muuse waa koow macnahaaga waan wada ognahay miraya laabtaada xisbiyadu hadday diiday ku shikaad keentay ma inaad masruuftaad rabtaa meesha ku joogo hadhowtana markaad jecesha hun mariya xeerkaaga macna laawa meeraysi wada kaligi meelayste mar haddaanad magaca u tureen maamulkana tur ha isku murugto waa markaad rabtay maatadan Allah ama de macna ileedahay maara gooniye nabadda miduun baan heli maara noo hele waa haddaanad maaliya ka rabin iyo mulkiyado waa haddaanad magac weyn ka rabin oo masiiba maasadaydan Muuse dhadhami way macaan tahay ha ku miiganay hoo biyaha waad marganaysaa marna wada liq Muuse miciinka ma filanayni walaal Amir Sisi Shiro Fashiya waxa doonayna su'aal ku weydiiyo magaca ku bilaabay walaal magacaagu Mawlido saad u aragtaa Samafalay Cabdimaalik Muuse Codon xarigiis walaal Cabdimaalik Muuse Codon xarigiis lagu saxayo odagu deydhood bajeel koor ciyaarayo dabatarada jeelkii kor ciyaarkiisu ma la fogaaday mooyaane markaan waxaan leenahay in lagu xidho waan ku saxsanaa marka waa taageersantahay in la xidho aad baad u mahadsantahay ayo walaalan ku soo dhawaad Amir Sisi Shiro Fashiya waxaan doonayna su'aal ku weydiiyo waan ka jawaabaya walaal saad u aragtaa Samafalay Cabdimaalik Muuse Codon xarigiis walaal waan ka xunay Cabdimaalik Muuse Codon la xidho waayo muwaadin reer Soomaaliland ah muwaadin tan u dhashay oo inta qof wax taro ayaa walaal ka weyn shakhsiyadiisa xiritaankiisa in la xidho la cadiyeeyo jeel lagu rido oo marna la dhahay Itoobiya loo dhaadhicinaya marna waxa la inagu cagajuleynaya horta waan ka xunnahay haddii madaxweynuhu yiri Itoobiya aan qaadanayn ta ka dhacdo Burco iyo gobolada Soomaaliland dhagaa faraal gelinaya waayo dadka ka soo horjeeda xiritaanka